madam qadayaal biiri qaataa oo raba qaranka in laga laalusho ayaa oranaya Soomaaliya oo la hadlayna amba salaadiin ha ahaadaan amba qaar kale oo iskooda u shaqo tagay ha ahaadaan nimanka odayada dhaqanka aniga oo ixtiraamaya waxaan oran lahaa adeer ciidad ka haynaysaan oo Soomaaliya geynaysan ma jirto waxaad u talisaan oo Soomaaliya dhaqanka ayaad noogu tihiin salaadiin laakiin qarannimada salaadiin nooguma tihiin qarannimada dawladii loo codeeyay ee xukunkii la doortay ee dadku ay masiirkoodii iyo macnahoodii iyo maskaxdooda ay ku aaminaan ee ay fartooda ugu codeeyeen ayaa qaranka markay noqoto in la wada hadlo xukuumadda ayuu qaranku saaran yahay mas'uuliyadiisu cidda kursiga ugu fadhiday loo hogaaminayo shacabka masiirkooda ay u dhiibteen ayaana ka hadlaya marka ay noqoto in Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadlaan laakiin nin meel iska joogo nima yararo Soomaaliland ka soo jeedo xogaa yaroo lacag fangareynaya Muqdisho intii ka soo dhiibaan dabeetana la oranayo Soomaaliland waxa lagu yeelo Soomaaliland salaadiin iyo in ka shaqo tagtay shacabka reer Soomaaliland ee damqanaya ayaa ka fara badan waxa ka fara badan kuwa aabayaashood ku dhinteen waxa ka fara badan kuwa hooyooyinkood lagu laayay waxa ka fara badan kuwa aan reerahoodii waxba ka hadhin laakiin kulay wada soo gashay waa dad ay wada soo gashay inta badan dadku markay meel iskada waayaan de waxay noqonaysaa inay maaragtay meel kale laga jooxjeeyo Soomaaliland waxay xoog saaraysaa inay ababaha dhaqan ha noqoto aba sida qoladiina saxaafadda oo kale ha noqoto meelaha Soomaaliland laga soo ataagi karo inay maaragtay cidii ay ka dhaqdhaqaajin karto ay ka dhaqdhaqaajiso salaadiintu mid maaha laba maaha saddex maaha afar maaha shan maaha lixna maaha toddoba maaha toban maaha boqolaal bay ka badan yihiin salaadiinta Soomaaliland marka hadday afar iyo shan ka mid ay hadlaan de boqol suldaan oo kale halkan taagan oo u jawaabaya